wuxuu raadiyey indhaha casaanka dhalaalaya ee ka dhex muuqday feeryo waaweyn oo ciidda ku aasnaa. waxaa ku dhex dhuumanayay ilmo libaax oo yar oo dhogor badan, kaas oo si kulul u guuxayay inkasta oo uu ku xirnaa silsilado sixir ah. Jen wuxuu si dhab ah ula yaabay in hal libaax oo yar uu ku guulaystay inuu ka badbaado dagaalkii weynaa. isagoo u malaynaya inuu yahay cadowga ugu dambeeyey ee haray, wuxuu gacantiisa ku sameeyey tooray hilaac ah, wuxuuna u diyaarsoobay inuu hawsha ku dhammeeyo. markii uu u dhowaaday dhalintii dhuumanaysay, wuxuu ogaaday faahfaahin muhiim ah. maadaama uusan ilmaha libaaxa ah weynaan markii uu boqorkii libaaxa dhintay, waa inayna ahayn mid ka mid ah wuxuushkii heshiiska kula jiray booska. isagoo si dhow u eegaya silsiladaha si adag ugu duuban makhluuqan yar, Jen wuxuu isweydiiyey in boqorka libaaxa uu ilmahaas ku haystay halkaas isagoo ku qasbaya. isagoo hoos u eegaya ilmihii xirnaa, Jen wuxuu siiyey eegmo cabsi leh, taas oo ka tagtay makhluuqii yaraa mid si gebi ahaanba u argagaxay. beddelkii uu weerari lahaa ilmaha libaaxa, Jen wuxuu si degdeg ah u ruxay tooraydiisii si uu u burburiyo silsiladihii sixirka ee haystay. isagoo ka xoreeyey silsiladihii, libaaxii yar wuxuu si nabad ah ugu dhacay ciidda subarka ah. Jen wuxuu dib u jeedsaday isagoo si dhow u sheegay inuu dib u siinayo xorriyaddiisii. xilli uu u diyaarsoobayay inuu ka tago, Jen wuxuu weydiiyey ilmihii libaaxa haddii meeshan burburtay ay ahaan jirtay gurigiisa. libaaxii yaraa wuxuu iska ruxay boodhkii isagoo daawanaya. isagoo si naxariis leh u eegaya, Jen wuxuu ka fikiray masiibada ay leedahay inaad aragto kuwa aad jeceshahay oo dhimanaya iyo wax kasta oo aad daryeesho oo la burburiyey. ilmihii libaaxa wuxuu ku staray Jen xilli uu qirtay inuu si sax ah u yaqaan sida uu xanuunkaas u eg yahay. isagoo u lugaynaya dhanka boortalka, Jen wuxuu kula taliyey ilmaha libaaxa ah inuu noolaado oo uu sii socdo, isagoo ku dhawaaqay inay la joogo wakhtigii uu gudbi lahaa dabaqa xiga. si kedis ah, shaashad nidaamka ah oo dhalaalaysa ayaa ka soo muuqatay wejigiisa agtiisa, taas oo muujisay codsi ku saabsan heshiis wuxush maadaama makhluuqu uu si iskood ah u bilaabay. heerka guusha wuxuu ahaa hal eber. heshiiska wuxuu sidoo kale furay 2 xirfadood oo dadban, kuwaas oo wadaagaya khibradda si loo kordhiyo sifooyinka awoodda iyo u oggolaanshaha Jen inuu ka arko indhaha wuxushka haddii uu khatar ku jiro. Jen ayaa joogsaday wuxuuna dib u eegay isagoo si dhab ah ula yaabay fariinta aan laga filanayn. ilmihii libaaxa ee caddaan ahaa wuxuu fadhiyey ciidda, isagoo kor u eegaya Jen xilli nidaamku uu aqoonsaday makhluuqan inuu yahay boqorka libaaxa ee Leo, wuxuuna weydiiyey in Jen uu aqbalayo codsiga makhluuqa ee ah inuu noqdo wuxushkiisa heshiiska la'ah. Jen wuxuu eegay ilmihii libaaxa ee yaraa, isagoo weydiinaya haddii uu dhab ahaan u rabo inuu raaco. ilmihii wuxuu ku jawaabay guux go'aan qaadasho leh. isagoo taagan marinka dabka ah horteeda, Jen wuxuu sharaxay qorshihiisa uu ku fuulayo munaaradda, wuxuuna uga digay in wuxuushku ay sii noqon doonaan kuwa aad u halis badan. wuxuu xasuusiyey ilmaha libaaxa ah inay suurtogal tahay inuu ku dhinto halkaas, isagoo weydiistay xaqiijintii ugu dambaysay. Leo wuxuu ku jawaabay guux kale oo kulul. isagoo arkay go'aanka adag ee ilmaha, Jen wuxuu aqbalay doonistiisa. indhahooda ayaa la bideen calaamad 5 geesood ah oo casaan dhalaalaysa. nidaamka ayaa ku dhawaaqay in heshiiskii la aqbalay, si rasmi ahna loo aasaasay axdigooda. nidaamku wuxuu muujiyey awoodda iyo xirfadda, taas oo oggolaanaysa heshiisyo qasab ah oo ku salaysan cabsigelin, laakiin wuxushku wuxuu dhimanayaa haddii uu sayidkiisu barafoowo ama dhinto. 2dii xirfadood ee dadban ayaa howlgalay, mid waxay kordhisay sifooyinka awoodda wuxushka iyadoo la wadaagayo khibradda, halka ta kalena ay sayidka u oggolaanayso inuu arko aragtida wuxushka haddii uu khatar ku jiro. ugu dambayntii, xirfaddii ayaa furantay, taas oo u oggolaanaysa inuu isgudbiyo meesha uu joogo wuxushku ama uu yeero. isagoo heshiiskoodu si rasmi ah u dhammaaday, Jen wuxuu dhoololo caddeeyey, wuxuuna ku dhawaaqay inay la joogo wakhtigii ay dhaqaaqi lahaayeen. markii ay u dhowaadeen duufaanta ololka ah, Jen wuxuu siiyey Leo hal xeer oo qura. inta lagu jiro dagaalka, diiraddiisa keliya waa inuu badbaado. Jen wuxuu markaas ku tallaabsaday marinkii dabka ahaa. waxay ka soo baxeen jar dhagax ah oo ku yaal deegaan ballaran oo dhulka hoostiisa ah, kaas oo ay ka buuxaan dhagaxaan dhalaalay iyo tiirar dab dareere ah. isagoo aad u dhididsan, Jen wuxuu xusay kulaylka daran ee meesha ka jira, isagoo dareemaya sidii in heerkulka sare uu dhalaalin karo. xilli ay baarayeen deegaanka, Leo wuxuu hoos u eegay meel dilaac ah oo dhagax dhalaalay ah. Jen wuxuu qirtay inuusan wax fikrad ah ka haysan waxa laga filan karo, laakiin rabshad ka dhacday meel u dhow lafaha ayaa si kedis ah u naxdin gelisay ilmihii libaaxa. iftiin indhotiraya ayaa ka qarxay meesha. dareenkii Jen ayaa kacay, indhihiisuna waxay noqdeen kuwo casaan ah xilli uu islamarkiiba dareemay khatar aad u weyn. ka hor uu isdiyaarin karo, weerar si baan u dheeraya ayaa si toos ah uga mudday laabtiisa dhexdeeda. Jen wuxuu si kedis ah ugu soo toosay sariirtiisa adduunka dhabta ah, isagoo neefsanaya oo gacanta ku haysta laabtiisa. wuxuu ogaaday in si degdeg ah loogu dilay ka hor inta uusan xitaa arkin kii weeraray, isagoo la yaaban awoodda naxdinta leh ee heerka riyada xun ah ee makhluuqaas. isagoo weli la ruxmaya naxdintii dhimashada khiyaaliga ahayd, wuxuu isweydiiyey nooca wuxush ee ku nool dabaqa labaad ee munaaradda. cabsigelintiisii waxaa kala gooyey walaashiis Iyun oo bannaanka albaabkiisa ka soo wacday si ay ugu sheegto in quraacdu diyaar tahay.
miiska quraacda Jen wuxuu ku staray quraac qaali ah oo ka kooban ramen iyo miro cusub. Wuxuu u sheegay Ayun oo boorsadeeda xiranaysay inay cunto aad u badan samaysay. Isagoo cunaya rooti duban, Ayun waxay ku amartay inuu dhaqo weelasha, waxayna xasuusisay inuu dhaqida dambe ka lulado qolka. Isagoo daawanaya iyada oo gashanaysa kabaheeda ah, Jen wuxuu weydiiyey meesha ay u degdegayso xilli ay ku jirto fasaxa xagaaga. Waxay ku jawaabtay inay u socoto shaqo xagaaga ah. Isagoo walwalsan, Jen wuxuu xasuusiyey inay isaga maamulayaan maaliyadooda oo aysan u baahnayn inay shaqayso. Ayun ayaa dhoolala caddaysay iyadoo u sharaxday in guushiisii dhowaan darteed ay diiday inay gadaal ka reebto. Waxay ku dartay in wax qabad la'aanta xagaaga oo dhan ay u lagato wax aad u xun, kadibna si farxad leh ayay u xasuusisay waajibaadkiisa guriga oo ay ka tagtay. Isagoo raacaya tilmaamaha walaashiis, Jen wuxuu dhaqay weelashii wuxuuna dharkii qoyanaa ka lulay qolka fadhiga. Isagoo dhammaystiray waajibaadkiisii, wuxuu ka fikiray in walaashiis ay had iyo jeer sidaas u adkayd. Isagoo eegaya sawirooda ku jira fareeshka, wuxuu la dhacay sida ay u adkayd iyo sida aan loo ruxin karin ay u sii ahayd. Si la yaab leh, in kasta oo aysan ahayn qof weyn, wuxuu inta badan dareemi jiray inay iyadu tahay ta isaga daryeesha. Fikirkiisa ayaa noqday mid madow dhanka mas'uuliyadaha ku soo fool leh. Marka ay arrimaha dugsigiisa xalilmaan, wuxuu ku qasbanaaday inuu wajaho boqorka shaydaanka ee Urad. Dagaalkan wuxuu ka fogeyn lahaa Ayun muddo dheer. Isagoo xasuusanaya dhoolala caddeeda, wuxuu qirtay inay tahay qofka keliya ee uusan ka joojin karin inuu ka walwalo. Si kedis ah, fikrad ayaa ku soo dhacday. Isagoo faraha ku cadaadinaya dhinaca madaxiisa, wuxuu isweydiiyey in tijaabo gaar ah ay shaqayn karto. Indhihiisa ayaa casaan noqday xilli uu adeegsaday awooddiisa. Albaab hawo ah ayaa samaysmay, ilmihii boqorka libaaxa ee Leo ayaa ka soo dhacay, isagoo si nabad ah ugu soo dhacay qolka dhexdiisa. Jen wuxuu ku staray rumaysad la'aan. Wuxuu la yaabay inuu awoodo inuu wuxushkiisa heshiiska la'ah ka soo saaro munaaradda oo uu keeno adduunka dhabta ah. Ilmihii firfircoonaa ayaa si degdeg ah guriga ula qabsaday, isagoo ku dhex ordaysa qolka fadhiga iyo si cayaar leh u jeexjeexaya tisooyada. Isagoo eegaya shaashadda nidaamka, Jen wuxuu sameeyey qorshe. Wuxuu ku amri karaa Leo inuu ilaaliyo walaashiis inta uu maqan yahay. Waad ku mahadsan tahay xirfadihiisa dadban, haddii ay khatar gasho, wuxuu wadaagi lahaa aragtida wuxushka wuxuuna u isgudbin lahaa si uu u badbaadiyo. Isagoo og in Ayun ay aad u jeceshahay xayawaanka, wuxuu xasuustay iyada oo si farxad leh u salaaxaysa xayawaanka balla'da ah. Isagoo daawanaya wuxushkiisa, Jen wuxuu dhoolalo caddeeyey, isagoo ku kalsoonaa in siinta ilmo libaax oo yar ay tahay fikrad fiican. Sanqadh weyn oo ka timid jikada ayaa kala goysay fikirkiisa. Isagoo naxay, wuxuu aaday inuu baaro, isagoo rajaynaya in Ayun ay jeclaan doonto xayawaankeeda cusub. Kalsoonidiisii ayaa baabaday markii uu arkay jikada. Ilmihii wuxuu sababay fowdo buuxda, isagoo jejebiyey suxuunta oo qaniinaya tubada biyaha. Dhanka kale, magaalada dibaddeeda xilliga qorax dhaca, kor u kac tamar madow ah ayaa burburiyey kamarad amni oo ku tiir utility ah, taas oo ka tagtay aagga mid aan la kormeerin. Ka hoosaysa, nin dhiig baxaya ayaa qabsaday seef baraf ah, wuxuuna dib u gurasho sameeyey isagoo cabsanaya. Wuxuu ka codsaday kii weeraray ee aan muuqan xilli ciddi weyn oo shaydaan ah ay ka soo muuqatay horteeda. Ciddidii shaydaanka ahayd ayaa hore u booday, iyadoo si naxariis darro ah ninka uga mudday laabta. Indhihiisa ayaa u fushay naxdin xilli xadhko casaan dhalaalaya ay hawada ugu qaadeen. Shaashad nidaamka ah oo cabsi leh ayaa soo muuqatay, iyadoo muujinaysa barlooding ah oo si qabow u tilmaamaysa in ninka la liqayo. Meel kale, Ayun oo daalan ayaa guriga u lugaynaysay iyadoo sidata boorsooyin ay ka soo qaadatay shaqadeeda xagaaga. Waxay ku neefsatay nafis, cagteeda oo ku burburtay mashquulka xagaaga ee shaaha bubletea. Jidkeeda wuxuu geeyey marinka hoose oo madow. Iyadoo aan ogayn, waxay si toos ah u socotay kamaradii amniga ee dhowaan la burburiyey ka hoosteeda. Xilli raadkeeda uu dhawaaqayay, joogitaan kedis ah ayaa ka dhigay inay istaagto. Waxay u jeesatay si la yaab leh maadaama qof uu ka soo dhex muuqday hooska, isagoo si qabo u sheegay inay ugu dambayntii timid halkaas. Isagoo ku sugaya marinka hoose ee madow, Jinduxen wuxuu sitay ubax weyn oo roso casaan ah, wuxuuna muujiyey inuu muddo dheer sugayay. Wuxuu soo dhex galay jidkeeda si uu ugu deeqo ubaxa, isagoo xusay inay dugsiga uga tagtay si aad u degdeg badan oo aysan u maqli karin martiqaadkiisa. Wuxuu intaas ku daray inuu caawa u ballansaday dhammaan dabaqa ugu sarreeya ee munaaradda. Isagoo eegaya ubaxa, Siun waxay weydiisay sida uu ku ogaaday ciwaankeeda. Jinduxin wuxuu si kibir leh ugu ammaanay aabbihiis oo ah agaasimaha cisbitaalka magaalada, isagoo leh helitaanka faahfaahintaas yar waa u fududahay. Iyadoo aan la dhacin, Siun waxay si qabow ugu jawaabtay inay ka tirsan yihiin adduunyo kala duwan, waxayna u sheegtay inuusan mar dambe raadin oo ay iska socotay. Isagoo ka xanaaqsan, Jindu wuxuu u lugeeyey dhankeed wuxuuna qabtay gacanteeda si uu u joojiyo. Wuxuu ka cawday dadaalkii ay ku qaadatay inuu ballansado goobta, wuxuuna si cadho leh u weydiiyey inay dhab ahaan qorshaynayso inay ka baaqato oo ay ku duleeyo martidiisa horteeda. Ayun ayaa si kulul u eegtay, iyadoo sheegtay inayna waxba ka khusayn sumcaddiisa, kadibna waxay ku tilmaamtay qof naxdin leh maadaama uu ilaa guriga ka soo dabaguuray.
isagoo ka xanaaqay in loogu yeero naxdin leh. Jindu wuxuu lumiyey deganaanshihiisa. Wuxuu ugu hanjabay weji madow isagoo uga digay inayna garanayn qofka ay la hadlayso ama waxa uu awoodo inuu sameeyo. Kabor uu dhammaystiri karo hanjabaadiisa, Siyun waxay si degdeg ah ugu jawaabtay waxayna ku dhuftay wejiga madax ku dhufo aad u adag. Saamaynta dharbaaxadaas ayaa keentay inuu dhulka ku dhaco isagoo ka ooyaya xanuun xilli uu haysto sankeeda dhiig baxaya. Isagoo taagan koradiisa, Iyun oo cadaysan ayaa ku qaylisay inuu madaxiisa ku soo baaro isbitaalka aabihiis. Ayadoo caraysan ayay iska socotay iyadoo uga digtay inuu ka fogaado, waxayna ka cabatay in falka uu sameeyey uu kharibay maalinteeda. Dambe makhribkii dhismahooda dabaqa ah, iftiin diiran ayaa ka soo baxay daaqadda qoyskooda, taas oo ka duwanayd marinka madow ee bannaanka. Markii ay guriga timid, Siyun waxay la yaabtay markii la siiyey ilmihii libaaxa ee caddaan ahaa ee dhogorta badnaa, Leo. Indhaheeda ayaa la bideen jacayl degdeg ah, waxayna si hamuun leh u habatisay makhluuqa yar, iyadoo gebi ahaanba jacayl la qaaday, waxayna si farxad leh u weydiisay walaalkeed, Jen, meesha uu ka helay makhluuqan quruxda badan. Jen wuxuu u iftiimiyey ilmaha inuu yahay Leo, wuxuuna u sharaxay inuu yahay hadiyad gaar ah oo loogu talagalay iyada. Isagoo aad u faraxsan, waxay la yaabtay xaqiiqda ah inay heli karto ilmo libaax oo ay hayso. Xilli Leo uu ku dhex jiro gacmaheeda, Siyun waxay aragtay faahfaahin la yaab leh. Waxay isweydiisay sababta ilmaha yar uu mar horeba u leeyahay dhogor qoorta ah oo weyn, maadaama inta badan ay tahay libaaxyada labka ah ee waaweyn oo qura kuwa u baxdo. Si kastaba ha ahaatee, si degdeg ah ayay isaga indhotirtay qarsoodigaas, iyadoo sheegtay inay subaxda iska diiwaan gelin doonto. Isagoo daawanaya iyaga oo isku xirmaya, Jen wuxuu dareemay nafis, isagoo og in walaashiis ay ammaan ku ahaan doonto wuxushka dhinaceeda marka uu maqan yahay. Si kedis ah, dhawaaq weyn oo telefoonka Jen ka soo baxay ayaa kala gooyey fikirkiisa, wuxuuna hoos u eegay shaashada dhalaalaysa. Dhoololo caddayn ku qanacsan ayaa ka soo muuqatay markii uu akhriyey email ka yimid xafiiska kormeerka guildka, kaas oo xaqiijiyey in codsigiisii la ansixiyey. Isagoo nafistay, Jen wuxuu u qaatay in wax walba ay hadda u socon karaan sidii qorshuhu ahaa. Halkan ayay xalqadeeni maanta ku dhammaatay. Asxaabta ii sheega daqiiqadaha aad ugu jeceshihiin in aan fideoska ka soo dhigo, subscribe-na noo sara si aan wakhtiga ugu dhow 3000 ku gaadhno. Waa inoo iyo xalqada 16.